madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa soo caga dhigtay magaalada Istanbul ee cariga Turkiga halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga. Waxa sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hor yimid oo soo dhaweeyay xubnihii golaha wasiirada ahaa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland safarkiisa gogol xaarka ugu ahaa ee dalkani uu sii joogay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo qadar nasasho oo ku qaatay qolka nasashada martida madaxda ee madaarka magaalada Istanbul ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland loo soo galbiyay hotelka u gaarka iyadoo ay xusid muday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisaba lagu soo galbiyay si heer caalami ah oo la mid ah tan wadamada dunida. waxaana xusid mudnayd in madaxweynaha Soomaaliland ay galbinayeen gawaari tiradoodu ay kor u dhaaftay 13 gaari oo ay wadaan dirawalada u gaarka ah ee loo tababaray in ay soo galbiyaan madaxda kala duwan ee caalamka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hab maamuuskani loo sameeyay waxa ka dhex muuqday ciidamada kala duwan ee dawladda Turkiga oo madaxweynaha Soomaaliland si aad u soo dhaweynayay iyagoo qaarkood ay wadada taagnaayeen isla mar ahaantaasina ay ka kala joojinayeen gawaarida kale. madaxweynaha Soomaaliland waxa hareer socday gawaarida lagu soo dhaweeyo madaxda kala duwan ee caalamka gaar ahaan nooca u gaarka wadankani Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay madaxweynaha Soomaaliland hab maamuuskan sare ee loo sameeyay ee dawladda Turkiga ay ku qaabishay. waxa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland sidoo kale faahfaahin ka bixiyay qorshayaasha kala duwan ee uu waajihi doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta uu kulamada la yeelan doono. madaxweynaha waxa lagu qaabilay hab maamuus madaxweyne oo dawladda Turkiga ay soo dhaweysay. waxa kaloo madaxweynuhu maanta leeyahay qada ay xukuumaddu siinayso kadibna barnaamijkiisii siyaasadeed iyo dhaqaale iyo horumar oo halkan u yimid ayaa u bilaami doona. barnaamijkuna wuxuu ka dhacayaa magaalada Ankara ee ah magaalo madaxda dalkan Turkiga. madaxweynaha wafdigiisa iyo waxa la filayaa in ay shirar kala gedisan u qorshaysan inay yeeshaan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga, wasiirka khaarijiga, wasiirka tamarta iyo petrolka iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumaddan dalkan Turkiga. intuu madaxweynuhu joogo waxa kaloo qorshaysan in ay wada arkaan howlaha horumarka ee dalka ka socda si dawladda Turkiga markaa ay kaalin weyn uga qaadato barnaamijka xagga iskaashiga ee labada dal. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa wafdigiisani ku wehelinayay marwada qaranka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland marwo Aamane Waris Sheekh Maxamed Jirde, wasiirada wasaaradaha madaxtooyada mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, wasiirka dib u dejinta mudane Saleebaan Xagle Toosiye iyo sidoo kale safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Nuux Dhoole oo isagu wafdiga kaga soo biray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. waxa xusid mudan xubnihii golaha wasiirada ahaa ee wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, waxbarashada, macdanta iyo biyaha ee iyaguna madasha ku sii sugnaa magaalada Istanbul si ay gogol xaar ugu sii sameeyaan socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku imanayay wadankani.